Sheekadu waxay ku bilaabanaysaa shirkad la yiraahdo Genius oo dirtay 6 xildhibaan ah si ay u tagaan Meeraha Cas. Safarkoodu waa mid halis ah maadaama aysan dib ugu soo noqon doonin dhulka, balse ujeedadoodu tahay inay noqdaan dadkii ugu horreeyay ee si joogto ah ugu noolaada Mars. Haddii ay guuleystaan, dadka kale ayaa la filayaa in halkaas la geeyo mustaqbalka. 2 bilood kadib markii ay safarkoodii bilaabeen, hogaamiyaha kooxda ee Sarah waxay si lama filaan ah u ogaataa in ay uur leedahay. Walka ayaa argagax ku rida kooxdii iyo madaxda, balse hawlgalku si caadi ah ayuu u socdaa. Markii ay ugu dambeyntii gaareen Mars, Sarah waxay bilaabaysaa inay fooshato, waxaana lagu khasbanaanayaa in 5 xildhibaan ay caawiyaan sidii ilmaha loogu dhalin lahaa. Sarah waxay dhashaa wiil la yiraahdo Xander, balse nasiib darro, halkaas ayayna ku geeriyoonaysaa. Marka la baaro ilmaha cusub ee Xander, saynisyahannada dhulka waxay ogaanayaan in jidhkiisu gaar ahaan wadnihiisa uu ka duwan yahay ilmaha ku dhashay dhulka. Haddii la isku dayo in Xander loo raro dhulka, ma noolaan karo sababtoo ah culeyska dhulka ayaa ah mid aad u culus jidhkiisana jilicsan. Maareeyaha Genius wuxuu go'aansadaa in Xander lagu hayo Mars, oo macnaheedu yahay in mashruuca la sii wado. Wuxuuna go'aansadaa in xaaladda Xander laga qariyo dadweynaha. Sanado kadib, Xander wuxuu ku barbaaray Mars, isagoo la noolaa 14 qof oo keliya. Xander waa wiil aad u caqli badan, waxaa xiise weyn ku haya cidda ay ahayd hooyadii iyo aabihiis. Maalin maalmaha ka mid ah, wuxuu furay sanduuqa hooyadiis Sarah iska lahayd, isagoo ka helaya furaanta USB. Markuu daawaday fiidiyowyada USB-ga, wuxuu ku arkaa hooyadiis iyo nin xeebta ku jira. Xander wuxuu u maleynayaa in ninkaasi yahay aabihii, wuxuuna bilaabaa in uu sawirka kaydsado. Dhanka kale, Xander wuxuu internetka kula xiriiraa gabadh dhulka joogta oo la yiraahdo Tesla. Tesla waa gabar geesiyad ah oo ku nool dhulka caadiga ah. Xander wuxuu u sheegaa inuu Mars ku nool yahay, balse Tesla ma rumaysanayso, waxayna u malaynaysaa inuu ku nool yahay dhisme yar oo New York ku yaalla. Markuu niyad jab dareemo, Xander wuxuu sameeyaa tijaabo halis ah oo sababi karta dhimasho, waxaana badbaadinaya mid ka mid ah xildhibaanadii ugu dhowaa Xander. Magacu waa uu adag yahay, balse waxaan u baxsanaynaa Xaliimo. Xaliimo waxay ku dadaalaysaa in la ogolaan lahaa Xander inuu yimaado dhulka. Xander wuxuu maraa qalabyo iyo tababaro adag si jidhkiisu ula qabsado culeyska dhulka. Markuu dhammeeyo tababarka, wuxuu la xiriiraa Tesla oo u sheegay inuu dhulka dhawaan imaan doono. Markuu yimaado, caafimaadkiisa ayaa mar kale dhibaato geliya, wuxuuna ka baxsadaa xarunta iyada oo ugu dambeyntii uu la kulmo Tesla. Xander iyo Tesla waxay go'aansadaan in si wadajir ah ay u raadiyaan aabihii Xander. Intii ay safarka ku jireen, xiriirkoodii ayaa sii xoogaysanaya. Ugu dambeyntii, waxay gaaraan nin ay u malaynayaan in uu yahay aabihii Xander, balse ninkaasi wuxuu u sheegaa in uu yahay adeerkii Xander. Xander isagoo niyad jabsan wuxuu u socdaa biyaha badweynta, isagoo doonaya in uu halkaas ku dhinto. Laakiin Xaliimo, maareeyaha Genius, iyo adeerkiis waxay badbaadiyaan isagoo miyir daboolsan. Xander wuxuu fahmaa in maamulaha Genius uu yahay aabihiisa dhabta ah. Xander waxaa lagu qaadayaa diyaarad khaas ah si loo geeyo meel ka baxsan culeyska dhulka, taasoo caafimaadkiisa dib ugu hagaajin karo, laakiin dib ugu soo noqon doono dhulka. Ugu dambeyntii, Xander waxaa loo celiyaa Mars. Filimkan halkaas ayuu ku soo dhamaaday. Fadlan hadaa ka heshay muuqaalka, fadlan muuqaalka like saar oo subscribe inoo dheh. Mahadsanid.